kulanti wacan daawadayaal kusoo dhowaada wararka warbaahinta Samakulan TV. Qodobada aan idiin haynana waxaa ugu waaweyn. Madaxweynaha Hirshabelle Maxamed Cabdi Waare oo iscasilay dhaliilna u jeediyay hanaanka loo soo dhisay maamulka cusub ee deegaankaasi. Ciidamada dowladda howlgal qorsheysan ka fuliyay deegaanka Sablaale ee gobolka Shabeellaha Hoose. Musharaxiinta guddoonka baarlamaanka Hirshabelle oo khudbadahooda maanta jeediyay. Weerar argagixiso oo ka dhacay magaalada Vienna ee dalka Australia. doorashada dalka Ivory Coast waxay abuurtay xasilooni darro kadib markii la shaaciyay natiijada hordhaca oo uu ku horeeyo Alassane Ouattara madaxweynaha dalkaasi. Qodobadaas iyo warar kale oo gudaha iyo dibadda la xiriira ayaan idiin haynaa ee u diyaar garooba wararkaasi oo faahfaahsan. kulanti wacan mar kale daawadayaal kusoo dhowaada qodobadii wararka aan idiin sheegnay oo faahfaahsan. madaxweynaha dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Hirshabelle Maxamed Cabdi Waare ayaa shaaciyay inuu iscasilay isla markaana waxa uu dhaliil u jeediyay habka loo dhisayo maamulka deegaankaasi. madaxweynihii Hirshabelle Maxamed Cabdi Waare ayaa goordhow shaaciyay inuu iscasilay iskana casilay xilka madaxweynenimo xilli muddo xileedkiisa uu ahaa mid dhammaaday isla markaana Hirshabelle ay ku jirto howlo lagu soo dooranayo hoggaan cusub. qoraal uu bartiisa Twitter-ka ku shaaciyay ayuu ku sheegay in si waafaqsan qodobka 52 ee dastuurka ku-meel gaarka ee Hirshabelle uu isaga casilay xilka madaxweynenimo ee deegaankaasi. Waare waxa uu ka sheekeeyay taariikhda dhismaha Hirshabelle iyo in markii hore uu ahaa mid loo maray dhismihiisa qaab qaldan iyadoo lagu guda jiro doorashada federaalka isla markaana baarlamaanka labaad ee Hirshabelle uu ku soo aaday dhismihiisa haddana iyadoo ay xaalad doorasho ku jirto. sidoo kale waxa uu soo jeediyay in doorashada dib loo dhigo ilaa dowladda federaalka doorashadeeda ay ka dhammaato iyadoo la mir qabo isla markaana laga tashado sidii loo dhisi lahaa maamulka cusub lana saxo qaladaadkii hore si ay u noqoto mid xasiloon oo waarta doorashada ka dhacaysa deegaanadaasi. madaxweyne Waare ayaa nasiib darro ku tilmaamay sida ay hadda wax ku socdaan isla markaana ay ku qanceen dowladda federaalka duubabka dhaqanka xildhibaanada matala Hirshabelle hoggaanka mucaaradkan ay qayb ka yihiin dhismaha maamulkaasi. Waare ayaa Hirshabelle u rajeeyay xasilooni inay hesho maamul loo dhan yahay oo dadka deegaankaasi ay wada dhistaan. ciidamada sida gaarka u tababaran ee danab ee dowladda federaalk ee Soomaaliya ayaa howlgal qorsheysan ay ka sameeyeen degmada Sablaale ee ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose waxay ku dileen sargaal sare oo ka tirsanaa dagaalamayaasha Al-Shabaab. wararku waxay sheegayaan in howlgalkan qorsheysan lagu bartilmaameedsaday guri ku yaala degmada Sablaale halkaas oo lagu dilay sargaalkan iyo qaar ka mid ah ilaaladiisa. sargaalka la dilay oo magaciisa lagu sheegay Mucaad Deere oo ka tirsanaa ururkaasi isla markaana u qaabilsanaa dhinaca gobolada Jubbooyinka. ciidanka commandos-ka oo war ka hayay in habeennimadii Sabtida sargaalkan iyo xubno la socday ay gaareen Sablaale ayaa howlgal qorsheysan ka fuliyay degmadaas iyagoona u galay gurigii ay joogeen oo ku yaala deegaankaasi isla markaana goobta ku wada toogtay sargaalka iyo 10kii xubneed ee la socday ilaalada u ahaa ayaa lagu yiri war qoraal oo ka soo baxay saraakiisha ciidamada danab ee dowladda Soomaaliya. ma jirto wax war oo ka soo baxay dhanka ururka Al-Shabaab oo ku aadan howlgalkaasi lagu dilay Mucaad Deere oo ka tirsanaa saraakiisha kooxdaasi. musharaxiinta u taagan xilka guddoomiyaha baarlamaanka labaad ee maamulka Hirshabelle iyo ku-xigeenadiisa ayaa maanta jeediyay khudbadahooda rasmiga ee musharaxnimada iyadoo haatan ay socoto abaabul loogu jiro doorashada guddoonka baarlamaanka ee maamulka Hirshabelle oo la filayo in maalmaha soo socda ay ka dhacdo magaalada Jowhar. xildhibaano badan oo musharaxiin u ah xilka guddoonka baarlamaanka Hirshabelle ayaa isi soo sharaxay iyaga oona isdiiwaan geliyay. xilka guddoonka baarlamaanka labaad ee Hirshabelle waxaa u tartamaya 2 musharax oo kala ah Cabdixakiin Luqmaan Xaaji Maxamed iyo Maxamed Maxamuud Ibraahim Goodir. Goodir wuxuu hore xildhibaan uga soo noqday baarlamaanka federaalka Soomaaliya halka musharaxa kale ee Cabdixakiin Luqmaan ee la tartamaya Goodir uu ka soo shaqeeyay safaaradda Soomaaliya ee ku leedahay dalka Suudaan. ilo ku sugan magaalada Jowhar ayaa warbaahinta Samakulan TV u sheegay in mid ka mid ah musharaxiintan oo lagu magacaabo Cabdixakiin Luqmaan Xaaji Maxamed ay wadato dowladda dhexe ee Soomaaliya isla markaana ay ku taageerayso sidii uu ugu soo bixi lahaa guddoonka maamulka Hirshabelle. dhanka kale haddaan eegna dalka Australia booliiska wadankaas ayaa gacanta ku dhigay rag toogasho ka sameeyay magaalada Vienna.
wararka la helayo waxay sheegayaan in raggan oo ku hubaysanaa qoryo fudud ay dhowr goobood ay rasaas ku fureen gudaha dalkaasi iyagoo ay ku dhinteen 2 ruux halka tiro intaa ka badan ay ku dhaawacantay. Booliisku waxay sheegeen in weerarkan uu ahaa mid argagixisayna gacanta ku dhigeen qaar ka mid ah raggii falkaasi fuliyey. Duqa magaalada Vienna ayaa saxaafadda u sheegay in haweeney ka mid ah dadkii fuliyey weerarka lagu toogtay weerarka goor dambe ay u dhimatay dhaawac soo gaaray. Dhinaca kalena doorashada dalka Ivory Coast ayaa abuurtay xasilooni darro kadib markii natiijada hordhaca ay soo baxday taa oo muujinaya in Alassane Ouattara uu ku horeeyo. Codeynta doorashada ka socota Ivory Coast oo bilaabatay 31 Oktoobar ayaa dhalisay xasilooni darro. Doorashada oo natiijada hordhaca ay kasoo baxaysay muujinayso inuu kusoo baxayo madaxweynaha dalkaasi Alassane Ouattara oo 2 mar soo qabtay talada dalkaas ayaa waxaa ka hor yimid hogaamiyayaasha mucaaradka dalkaasi kuwaas oo ku doodaya in dastuurka dalkaasi uu qabin in madaxweynuhu ilaa 3 jeer uusan mar kale isu soo taagin dalada wadankaasi isla markaana hadda uu doonayo in dastuurka uu jebiyo. Doorashooyin hore oo dalkaasi ka dhacay ayaa waxaa la soo sheegayaa in 30 qof ay ku dhimatay waxaana hadda la sheegay in 35,000 oo ciidamada ammaanka ah loo daabulay guud ahaan dalkaasi si ay u sugaan nabadgelyada codeynta doorashooyinka dalka Ivory Coast. intaas ayaan daawadayaal saaxiibayaal kusoo gabagabaynaynaa wararka duhurnimo ee maanta ee warbaahinta Samakulan TV. waxaa soo jeedinaya anigoo Cabdinaasir Maxamed. intaan dib u kulmeyno waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.